Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada kuna soo dhawaada channelka Roman Media. Magaciiguna waa Cabbaas Mustafa. Waxaan maanta muuqaalkeena ku soo qaadan doonaa qiso ku saabsan Oprah Winfrey. Inaad like saarto videogan wuxuu naga saacidi karaa YouTube-ka inuu dad badan gaarsiiyo. Waxay dhalatay 1958 iyadoo ka dhalatay qoys aad u faqri ah. Aabaheeda iyo hooyadeeda guur kumaysan dhalin. nolosha adag ee reerkoodii ka jirtay awgeed waxay marba la nooleed hooyadeeda, aabaheeda iyo ayadeeda oo kala nool ahaa. 6 sano ee ugu horeysay ayadeeda ayay la nooleed. Waxa aan haysay nolosheeda awgeed waxay xiran jirtay jawaanka bardhada, dharka ay ka sameyn jirtay, taasoo ay caruurta ku ceen jireen. Markii ay 6 jir noqotay, hooyadeeda ayay aaday. Ayadeeda si wacan umaysan barbaarinin dhibaato ay ku qabi jirtay. Hooyadeedna way ka sii liidatay. hooyadeeda gabar kale ayay dhashay. nolosha adag ay haysatay awgeeda maysan suurtagelin in labadooda ay wada koriso. sidaas awgeed waxaa loo diray aabaheeda oo magaalo kala joogay. halkaas ay muddo joogtay. guriga aabaheeda waxaa ugu darnaa meel kasta adeerkeeda qoyskeeda qof ay saaxiibo ahaayeen ayaa farxumeen ku kici jiray markii ay soo gaartay 9 sano. markii ay xamil weeday farxumeenta loo geystay ayay ka carartay guriga aabaheeda iyadoo ku laabatay guriga hooyadeeda. isla waqtigaas iyadoo 14 sano jir ah ayay ilmo yar dhashay balse waa uu geeriyooday. dugsi sare ayay dhiganaysay waxbarashada oo ku fiicneed ayaa dhaxal siisay in jaamacad gobolkeedii ay deeq ka hesho. xilliga waxay ku jirtay waxbarashadii dugsiga sare ayay noqotay boqoradda quruxda ee gobolkeedii. sidoo kale idaacad magaaladeedii ku taalo ayay ka heshay shaqo, halkaas oo shaqooyinkeedii warbaahinta ka bilowday. muddo kadib 24 jirkeedii ayuu kufsi ku kacay wiil ay ilmo adeero ahaayeen, markaas oo ay ku jirtay waxbarashadeedii sare ayna ahayd gabar aad u firfircoon. sanadii 1983 ayay u soo wareegtay Chicago, waxayna shaqo ka bilowday muuqbaahiyaha WLS-TV iyadoo ka bilowday barnaamij Am Chicago. halgan badan oo ay soo gashay kadib waxay samaysay barnaamij caan noqday oo la oran jiray Oprah Winfrey Show oo ay bilowday sanadii 1986 kaasoo ku wareysatay dad badan oo magac ku leh dunida. barnaamijkaas 40 milyan ku dhawaad ayaa daawaday. waxay soo afjartay sanadii 2011. hanti badan oo ay ka samaysay warbaahinta ayaa ka dhigtay inay noqoto madow Afrikaantii ugu hodansaneed qarnigii 20aad. waxay ahayd gabadhii ugu horeysay ee madow ah ee noqoto bilyaneerad guud ahaan caalamka. sidoo kale waxaa loo doortay qofkii ugu sareeyay ee madow ah ee deeq-bixiye ah gudaha Mareykanka. muddo badan ayay ahayd gabadh madow ah ee ugu taajirsan dunida. 2007 ayay noqotay gabadha ugu saameynta badan dunida, iyadoo sanado badan ka soo muuqatay liiska dumarka ugu awoodda badan dunida. sanadihii u dhaxeeyay 2004 ilaa 2006 ayay ahayd bilyaneerada kaliya ee madow ah ee liiska Forbes ku jirtay. waxaa lagu tilmaamaa boqoradda warbaahinta. waa shakhsi aad saameyn ugu leh gudaha dalkeeda. waxay 400 milyan ku qarash gareysay kobcinta waxbarashada caruurta Afrika. maanta waa bilyaneerad hantideeda kor u dhaafayo 2.9 bilyan, kana mid ah dumarka ugu hodansan dunida. qoftaas aan ka soo sheekeeyay waa Oprah Winfrey, shakhsiyaad nolol adag ku soo kortay oo bilaa qorshe ah ku dhalatay. caruurnimadeeda kufsi isxiga lagula kacay, dhar ahaan u xiran jirtay jawaanka bardhada, mar ku sigatay inay isdisho, nolosha laamaha ku guuldareysatay. maanta waa mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu samcadda badan dunida. waa tusaale nool ay eegi karto haweeney kasta oo caqabada nololeed wajahan.